dalka Soomaaliya hadda koorna aan sheegnay waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed dad xayawiye leh oo nool oo firfircoon oo maxaan ku raadaay yaani leh initiatives la waay dadka Soomaaliyeed maadaama ay saas yihiin oo dad ganacsato ay yihiin oo ay duruufyada dalka xataa muga adkaadeen ay regionkan gobolka geeska Afrika oo dhan meel kasta hadaad tagtid warshado iyo ganacsiyo waaweyn ay ku leeyihiin waxaan dawladda Soomaaliyeed ay go'aansatay in lagu aan ka mid noqono suuqa bariga Afrika oo ay ku jiraan muxuu ahaay 7 dal hadda oo isku xira badda Atlantiga ee qaaradda Afrika dhinacaas ka marta galbeedka ka marta ilaa badda Indian Ocean ee annaga aan deganahay inta ka dhaxaysa isku xira oo dadka 7daas dawlad ku nool ay yihiin 400 milyan inaan ku biirno dhaqaale ahaan iyo ganacsi ahaan iyo dad iyo socod ahaan iyo masaalix ahaan aan ku biirno ka mid noqono ayaan go'aansanay mar hore annagana waa sii xoojinay waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inuu sheego 2 maalmood ka hor madaxda 7daas dal ku shirtay magaalada Bujumbura ee dalka Burundi waxay soo ogolaadeen Soomaaliya inay ka mid noqoto suuqa bariga Afrika wala soo ogolaaday wixii kale oo dhameystir ah oo shuruucda iyo nidaamka iyo dhaqanka ka jira meesha sida aan u waafaqi lahayn sharciyadaha aan u raaci lahayn waa noo dhiman yahay waana raaci doonaa dabcan shuruucdaas in badan oo kamidana baarlamaanka la keeni doonaa baarlamaanka laga rabaa inuu ratify gareeyo oo ogolaado waana ogolaan doonaa insha Allah dadkeena haddii ay Kenya joogaan oo Tanzania joogaan oo maxaan ku raadiyay Uganda joogaan oo South Sudan joogaan oo DRC ay jiraan joogaan oo kulli hanti ay ku haystaan aanan sharciyeysnayn on la aqoonsanayn maanta wixii ka dambeeyo hantidooda iyo ayaga sharciyada ay meeshii joogaan ku joogayaan ay ku haysanayaan lama dhici karo lama boobi karo lama qashqashaadi karo lama ihaanay karo inta aan la rabnay oo aan u raadinaynana waa intaas in aan wada xaajoodkaas sharciyada ka jira meesha aan ka galno oo aan baarlamaanadeena kana laga rabaa sanadka intuu soo dhamaanin si wax walba ay noogu furnaadaan meeqaanahay laakiin meeqaan noo furan inaan la ganacsano haddaan nahay 5 milyan 10 milyan 20 milyan aan ogolaano in badeecadeena la keeno dalkan oo lagu ganacsado annagana noo ogolaado 400 milyan suuqa inaan ku ganacsano هذا منطقة صحراء وحو تلمامي ووضا قرر كرنا أيضا عبسي وأنا نقصو دولا داد وحيقانا إيمانا آن برانو آن سعنو آن ترتنو نرشو ترتن